waad ogtihiin qof kasta Soomaali wax ku dhacaan meydkii xabaashiisa la fogeeyaa Hindiya la geeyaa Ethiopia la geeyaa wixii la rabana waa lagu sameeyaa we don't know medical negligence ay marayaan because we are not there marka qofkii la geeyo isagoon ahayn isagu medical expert oo dawo doontay wixii la rabaa laga sameeynaya waa dad baylaha weey waxa la inooga baahan yahay especially gabdhaha Soomaaliyeed inaynu dadkaas xabaalahooda la fogeynayo wadankooda lagu xabaalo oo aynu isbitaal uga dhisno wadanka walaashay oo maanta iyadu isbitaal dhistay way garan kartaa baahida ma jiro reer Soomaaliyeed oo haysta 20 wiil oo yar oo baaralaysa halkaas ka daawan doontaan waxay ku tusinaysaa xasuuqii laascaanood loo geystay waxay ku tusinaysaa sida loo talax tagay ee uu ahayn dagaalkii xitaa Soomaalidu ku dagaalami jirtay waxay ku tusinaysaa qaar indhala qaar xiniyala qaar muxuu ahaayay laxaad la oo diapers xiran weeye markaan la hadlo laxaad lug maaha gacanna maaha waa rest of your life diapers inuu xidhnaado oo la rogo oo la qaado oo loo maydho oo qaarkood surka ay ka nool yihiin waxaan rabnaa insha Allah ta'ala I wish ilaahay waxba kuma aha subhanahu wa ta'ala isaga awood leh ka aan maanta doonaya laascaanood inaan ka dhiso waxa ilaahay ka baryayaa inaan Soomaali meel ay degto aan gaarsiiyo biidni Ilaahi ta'ala waxaan ka shaqayn jiray rehab center London waxa la keenay jiray wiilasha ku soo dhaawacmay Iraq iyo Afghanistan waxa la siin jiray iskuul dhigtaan oo iyagoo baaralaysa ay shaqeeyaan oo iyagu ay shaqeystaan oo adduunyada la jaan qaadaan oo iyagu ismaamuli karaan anaga maanta laakiin waa basic inaan jis helo nadaafadooda cuntadooda dhakhtarkooda dawadooda laakiin tan baa maanta ah waa gobolkii ugu horeeyay baatiin America marka inta aan nimid oo caawaanu imaado centerka halka laga dhisayo physiotherapy centerkii leh masaajidkii leh learning centerkii wax ku baranayeen iskuulka lahaa leh clinic dhakhaatiirtu u fadhiisanaysay leh meeshii ay degayeen ku noolaan lahaayeen leh qaarka outpatient ah ee imanaya ee magaalada degan ee gacmo qaloocan yihiin loogu jimcinayo oo dabeedna ay guryahooda ku noqonayaan kuwa aan dadka maanta yaani la daryeelayaan ay forever ku noolaanayaan dadka goblanka ah ee aan ubadka lahayn ee waaweyn ee reeraha aan ka naxaynin caruuraha lahayn docdooda yaala in iyaga laftooda ku jiraan qof kasta oo Soomaali ah oo maanta u soo baahda waa mid uu leeyahay oo dhaxalgal ah weeye gudoomiyaha hadda wuxuu lahaa la foole jaamacadda Nugaal buu idin yimid jaamacadda Nugaal isbitaal bay ahayd dagaalka markuu socday 500 wiil baa oo li jiray oo wada taahaya oo nin walbaaba maxaa hayay qaarna la qaadayo qaarna soconayaan markii aan isbitaaladu buuxsameen halkaas ay noo ahayd cuntadana loogu karin jiray qof kasta oo halkan fadhiyo maalintii Nugaal loola yimid wax ka qabtayo Nugaal aqoonta kaliya lagu ma barto murugooyinka waaweyna way fayday marka wax aad bixiso oo la xidho ama la cuno legacy ma aha legacy waxa maanta buildingka intay galaan ummadda Soomaaliyeed kala xidhnaan maysa ay ka faa'iidaan qof baana keeni lahaa uma malaynayo inay xitaa Africa haysato nursing home with a rehabilitation center oo ay ku kaargarayaan iyagoo dawladale laakiin inaga alxamdulillaah rabbil caalamiin waxaan filaynaa inuu meel kasta inoo gaaro ma doonayno inay noqdaan humanitarianka Soomaalidu waxay u taqaanaa 3 shub iyo caagad saliida inta qof gurigiisii laga soo kaxeeyo buul loo dhiso baa la oranaya baraka tahay qof wadankiisii joogo haddana sheeganaya inuu baraka yahay waa bahdilaad halkiisii u dambeysay waxaan rabnaa wax muuqda oo qof anaga hay'ad lagu soo qaadatay aanay ahayne wax muuqda oo ummadda Soomaaliyeed gobonnimadeedii leh oo jeebkooda laga soo saaray bari inaad reer Ohio aad daawataan wixii aad qabateen oo aan idin soo bandhigo biidni Ilaahi ta'ala maraba inaan ku dheeraado aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan rabaa inaan presentationka idin tuso centerkiyo 3D idin tuso wiilasha wajiyadoodii idin tuso laba hablood baa ku shiran laakiin diiniyan gabdhaha ma soo bandhigi karo laakiin wiilashaad arki doontaan 7 years old ayaa u yar hadda waa 8 waxa weeyaan gurigooda wiiftada ugu tagtay 22 jir baa ku jira 19 jir baa ku jira 18 jir baa ku jira ninka ugu weynina waa 55 jir
inta kalena waad garan kartaan marka murugada inay adila faydaan centerka waxa la iigu qiimeeyay in uu noqonayo $1,800 waxaan u maleynayaa qof kasta adduunka ku nool Soomaaliya $1 haduu isiin lahaa even though culeyskaas uu faydi lahaa laakiin maadaama aan dadkii isla wada helaynin aawar reer Ohio waxaan rabaa xeeriyo waaweyn inay ii sii xidhaan gabdhaha markay soo dhibaad doontaan oo ay marka intaan gabadh qaali oo la guursado oo ay reerkooda ku soo noqoto yarad badan laga qaato geel fara badan iyo yarad soorana iyo xeeriyo loo xidhi jiray xeeriyo waaweyn baa idinka rajaynayaa jasaakum allah khayr wajzaa